aad iyo aad baan naloo soo dhaweeyey madaxweynuna waa mahadsan yahay arrinta caasha laga hadlayay aniga ayaa idinka kulbiira arrinta caasha aad iyo aad annaga u xilsaaran annaga ayaa hawshaas ku jirna dadkii la keenayna annaga ayaa soo dirsanay. maxaad kala hadasheen marka madaxweynaha haddii fursadda noocana aad la kulanteen? waxaanu kala hadlaynay dadkii lahayay qaar in lala haray oo ayadaas arrintaas ka hadlay dadka lala haray waliir waa la sii deynayaa taliyaha daraawiishta loo dhiibayaa wax dambiyana ma lahayn nimankaas ayaanu kala hadlaynay dad dambi qabana waa ku jireen. waa gartay muxuu idiin sheegay madaxweynaha markaad kala hadasheen dadka la sii deynayo? annagaa u sheegnay dadkii waa la sii deynaya bilaa amar baa lagu sii deynayaa meesha kaalkacaya waa meel dhib badan dadkii hawshaas ku jirayna qaarkood bay sii deynayaan meel run looga shaqeeya kaalkacyo maaha. waa gartay waxaad iga warantaa ilaa hadda inta qof ee u xiran kiiska Caaisha ma ogtihiin idinka ka qoys ahaan? hadda waxaa ku haray 8 baa ku haray 3 waa dadka iyaga ahaayeen oo qafriga laga qabtay waa dadkii carruurta gabadha wax ka baarayay laakiin 5 kale oo isku dhex jiro bal rabeen la sii daayo waan tuunsanahay. waa gartay dadkaasi ma garow ku xiran yihiin mise gaalkacyo ku xiran yihiin? gaalkacyo ku xiran yihiin waxaan kala hadlaynay inaan la sii dayn ilaa DNA uu ka imaanayo oo mataqaana farooda iyo wax walba la helayo baan kala hadlaynay. ilaa intee leeg baad kalsooni ku qabtaan marka in cadaalad aad ka heli kartaan kiiskan ama falkan loo geystay gabadhaada? aad iyo aad baan ugu kalsoonahay hadalka madaxweynaha aniga ayaana la hela xiriirayaa buu yidhi cid kalaad ka xiriiraysaa ma jiro guddiga mataqaana baarisana waa dirayaa buu yidhi marka aniga jawaabteena siinaya buu yidhi. idinku awal sideed ku ogaateen in la sii deynayo dadka qaar ka mid a dadkii la hayay? waa naloo sheegay guddoomiyaha gobolkan la xiriiri jiray waa naloo sheegay waagi hore 4 baa kiiska lagu hayaa buu yidhi 4taasna waxaad bay ku tahay dariska iyadana ahaayeen dadka wax suubinaya falka laga guri baa noo dhexeeyey. saana waa jirtaayo waxaadkaagiyo nabadgelyo jiro iskuulku dhiganayo qoraal ku dhiganaysay ayaa nimankaas wadada jibgoyo dhigteen ka qabtaashay waa gurigu 40 tib buu jiraa inta aan baaraynay oo meel walba aan telefoon direynay wadooyinka iskabasaasa gareeyo hordho ilaa jiska xamar walceel meel walba halkaasa gabadha lagu haystay markii dambana gabadha way garaysay dadka waxaa la yidhi andigi waa la dilay jawaan baa lagu riday. waa gartay adigoo aad u mahadsan Ilyas waqtigaagana aan kaaga mahad celinayno kiiskan mudduu jiray dadka qaarkoodna waxa ay cabasho ka muujinayaan qaabka cadaaladda loo heli lahaa marka laga yimaado qoyskiina kalsoonida aad ku qabtaan hay'adaha garsoorka marka laga yimaado ballanqaadka madaxweynuhu idiin sameeyay maxaad ku qiimeyn kartaa? waxaan ku qiimeyn karaa aad iyo aad baan u qiimeynayaa waana ku kalsoonahay barkan ka hor baa bal rabeen iska sii daayo dadka oo la kala reebo. tirada ama inta qof kiiskan ku lug leh wax xooga ma ka haysaan ama ma la idiin sheegay? qaar waa garanaynaa darsbayna lahaayeen qaar kalena dadkii ficilka wax ka galay bay ahaayeen oo qabriga wax ka qodahayay oo arrinta gabadhi markay dhimatay ay la tashadeen oo habeenimo loo yeeray oo qabri qoday. qabrigaasna ilaa hadda waa qodan yahay. dawladda wax kaalmaa ama hay'adaha ma ka hesheen wixii ka dambeeyay dhacdadan? annaga cid kaalma aan uga baahanahay ma jiro kaalmadaan doonayna cadaalad weeyaan cid kale aan uga baahanahay ma jiro ilaahayna waa ku kalsoonahay gabadhaasna waa naga baxday annaga. waxaan uga jeedaa adoo raalliya kaalmada aan ka hadlayo waxa weeye cid idinka caawisay dhinaca sharciyadda iyo garsoorka iyo ma jiraan? haddana laga caawinayaa oo mataqaanaa guddi la dirhayaa naga si aad iyo aad nooga sii caawiya waana mahadsan yihiin ayaguna.